waxaa maanta oo ay taariikhdu ku beegnay 2 November ka dhacay magaalada Muqdisho xaflad lagu maamuusay xuska maalinta caalamiga ah ee ka hortagga iyo dabargoynta tacadiyada ka dhanka ah warbaahinta adduunka. haddaba xafladaas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socotay dhanka dawladda iyo qaybaha kala gedisan ee warbaahinta ayaa dhammaantoodba ay hoosta ka xariiqeen qiimaha ay warbaahinta xorta u leedahay maalintan caalamiga ah. gudoomiyaha ururka suxufiyiinta haweenka Soomaaliyeed mudane Leyla Cadceed Cismaan oo runta news u warantay ayaa sheegtay in maalintan oo kale ay uga dhigan tahay maalin weyn maadaama ay tahay bay tiri maalin difaacda xuquuqda iyo jiritaanka wariyaha. magacayga waa Leyla Cadceed Cismaan waxaan ahay gudoomiyaha Somali Women Journalists Rights Association soo jira maalintani joojinta la xisaabtan la'aanta tacadiyada ama xadgudubyada loo geysto saxafiyiinta waxa ay inooga dhigan tahay mid aad u weyn maxaa yeelay waxaan nahay journalistayaal ama bulshada journalistayaasha Soomaaliyeed waxa ay muddo dheer ku soo noolaayeen tacadiyo loo geysanayo oo hadba heer joogay haba kala sareeyaan oo kala xoog badnaadaan. waxaa sidoo kale goobta ka hadlay Maxamed Cilmi Mxilo oo ka socday hay'adda xuquuqul insaanka isagoo sheegay in iyaga iyo wariyaashu ay xagga shaqada iska agdhow yihiin oo ay u shaqeeyaan hab isku si ah. magacayga waa Maxamed Cilmi Mxilo wada shaqayn weyn baan leenahay wariyaasha isku shaqaanahay waxaan wada ilaalinaa xuquuqda aadanaha waxaan u shaqeynaa hab isku mid ah. wariye Fardowsa Maxamuud Sahal oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho ayaa ka sheekeynaysa tacaddi ay u geysteen ciidamada booliska Soomaaliyeed xilli ay ku guda jirtay howl maalmeedkeedii. shimay ayaa waxa ugu dhacay tacaddi taasoo ay u geysteen askar ka tirsan booliska Soomaaliya oo askar iyo saraakiil dad isku jiray waana shaqadeeda gudanaya intuu u yimaado oo gacanta ila tago asaga iyo askarigiisa oo wada jir ah markii gacanta ila tagana askarigiisa intuu soo gudbay aniga intuu qabto uu laamiga dhexdiisa ugu tuuray halkaasna dhaawacyo iyo jug ay soo gaartay. warkan iyo warar kale oo xiiso badan waxaad ka bogan doontaa channelkayaga Runta TV oo had iyo goor ku soo gudbin doona warar sugan oo xaqiiqo ah.